diyaaradii qaaska u ahayd Netanyahu ayaa la sheegay inay goordhow ka carartay airportka Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv. warbaahinta Israa'iil oo sheegaysa diyaaradaasi oo aan la garanayn halka ay u carartay inay fariin u tahay xilliga dagaalka lagu qaadayo Iran inuu soo dhawaaday. haddaba tafaasiil ku saabsan xaaladda Iran iyo weerarka la sheegay 24 saac gudahood in lagu qaadayo ayaynu barnaamijka meesha ay wax marayaan idinkula wadaagi doonaa. kooxdii imaaraadku taageerayay ee dalka Suudaan ee dacmu sariic ayaa la sheegay in ay soo bandhigeen fiidiyoyo ay ku sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ee Masar ay nagta ka saareen fariisimo ay ciidankaasi ku sugnaayeen iyagoo waliba daakum ka dhigay xerooyin ciidan oo ay kooxdu ku lahayd gudaha dalka Suudaan. haddaba maxaa ka jira imaaraadka in haddana Sacuudiga iyo Masar ay doonayaan inay degdeg ugu jabiyaan dalka Suudaan? maxay ka yiraahdeen masaarida dowladda Suudaanse maxay ka tireen weerarkan ay sheegayaan maleeshiyada dacmu sariic? haddaba xaaladda dalka Suudaan oo waji kale iyaduna markan la baxday ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. qaybaha dambana waxaan idinkugu hayaa masaarida oo sheegtay hay-adooda bisha cas in loo ogolaaday dhowr baabuur oo gargaar ah oo alaabta qaboobaha wada inay galaan magaalada Gaza maanta oo Arbaca. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirnana wixii wararaya soo kordha asxaabay waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horeeyay. maanta waa Arbaco. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xaaladda Iran. xalay waxaynu sheegnay warbaahintu inay ka hadlayeen 24 saac ee ugu soo aadan in Trump uu qorshaystay inuu weeraro Iran. 24 saac ee warbaahintu ka hadlaysay oo xalay bilowday ayaynu weli ku jirnaa. xaaladdu masaasaan colaadeed ayaa weli taagan mise way dabacday? may, weli saasaanta colaaddu way taagan tahay. saakay waxaa arrinta uga sii daray warbaahinta Israa'iil markii ay soo bandhigeen oo ay sheegeen diyaaradii gaarka u ahayd Netanyahu inay goordhow ka kacday garoonka Ben Gurion. meel ay aadayna lama yaqaano, way carartay. hadda ka hor waxay yidhaahdeen dagaalkii 12 maalmood markii uu bilaabanayay ayay diyaaradda sidan oo kale uga carartay garoonka Ben Gurion, kadibna jugtaa la iska qasay. hadda marka waxay leeyihiin warbaahintii kuwii carabta iyo kuwii Israa'iiliyiinta ififaalaha ka muuqda hawshan waxay u eg tahay in la isfara saari doono Iran iyo raggan ishaya. dhanka kale waxaa la sheegayaa Iran iyaduna inay ciidamo si gaara u tababaran ay hadda la wareegeen dhammaan mu'asasaadkii dowladda ama hay-adihii dowladda, meelihii muhiimka oo dhan ay qabsadeen. haddaba maxaa ka soconaya gobolka bariga dhexe? xaaladdu waa sidee? haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay. haddaba wargeyska la yiraahdo Al-Qaahira 24 ayaa wuxuu daabacay warbixin uu leeyahay waa sidii sheekadii dagaalkii 12 maalmood oo kale. diyaaradii Netanyahu ayaa ka baxsatay oo ka carartay Israa'iil si la yaab leh oo weliba aan la filayn ayay u baxsatay. haddaba taqriirka ama warbixinta diyaaradan gaarka ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa goordhow maanta oo Arbaca waxa ay ka duushay garoonka la yiraahdo Ben Gurion ee ku yaala duleedka magaalada Tel Aviv. si aan horey loo sii sheegin oo aan la filayn ayay diyaaradda uga baxday Israa'iil. haddaba dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Iran ayaa wuxuu yahay mid mar walba laga baqayo in ay markaa xabaddu bilaabato. haddaba dagaal janalka la yiraahdo 12 oo Israa'iiliyiintu ay leeyihiin
ayaa goordhow boggiisa isna lagu daabacay diyaaradii gaarka u ahayd inay qaado ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ka carartay talaabiib iyadoo aan la garanayn halka ay aaday. sidoo kale kanaalka la yidhaahdo 13 ee israa'iil ay leedahay ayaa isna goordhoweyd waxa uu sheegay in markaa diyaaradda cararidda ay ka tagtay israa'iil ay ka dhigan tahay bilowga dagaalka israa'iil iyo iiraan iyo maraykanka oo markaa la filan karo waqti dhow inuu halkaa ka qarxo. marka waxaa leeyahay sidaasaa marka wax u jiraan. diyaaradan wuxuu geystaa ninkan meel kaluu geystaa oo macnaha ay ku dhuumataa. waxawaaye garoonka dee wuxuu noqonaa meel baashii waxaa imaanaysa jugta culus gantaalihii iiraan. diyaaraddu marka inay ka gubatuu ka baqaa lacag badan way ugu fadhidaa. ninkan waa diyaaradda uu ku safro oo hawlihiisa dhan ku qabsado. marka waa la qaxiyaa diyaaradda markii dagaalku bilaabanayo waddamadaasaa la geeyaa. kadib markii xaaladda degto ayuu soo ceshadaa. marka jawigu marka halkaasuu maraa waa dhanka israa'iil. dhanka iiraan isaguna maxaa ka cusub? haddaba aan idi tuso telefishinka alcarabiya isagana goordhow wuxuu qoray kadib hanjabaadaha Trump oo isa soo taraya iiraan waxa ay xoojisay ilaalinta xarumaheeda ama goobaheeda muhiimka ah sida meelaha korontada laga dhaliyo, meelaha biyaha iyo meelaha isgaarsiinta. intaba waxaa la geeyay ciidamo si gaara u tababaran. marka maxaa loo geeyay ciidanka meelahaas? laba arrinba dadka way ku fasireen. in dadkii uu yiri Trump soo baxa anaa idin caawinaya inay inta soo cararaan ay meelaha ku habsadaan oo mudaaharaadka sameynaya korontadii iyo biyihii iyo wixii. marka ciidan si gaara u tababaran meesha sidaas ayaa loo geeyaa cabsi laga qabo in fadqalalo iyo dhibaato ay ka dhacaan goobahaas haddii weerarka uu bilowdo uu dhaco. haddaba marka jawiga guud ee marka xaaladda halkaasay wax marayaan. saakay weli cabsidii waa taagan tahay. waqtigii la sheegayay weli lama gaarin, waa ilaa caawa. bal haddii wax isbedelaan iyo haddii ay wax soo kordhaan waa arkaynaa. laakiin xalay ilaa saakay maxaa u dhaxeeyo isbedelay? weli wax isbedelay male ilaa in dhiilo colaadeed iyo wax colaad ku saabsan laga sheekeynayo. diyaarada carartay karaa la sameeyey, ciidana meel lagu daaday, weli hawshii way taagan tahay. marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa xaaladda dagaalka laga baqayo in lagu qaado iiraan. wixii soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa oo waan idinla wadaagi doonaa. haddaba qodobka labaad oo isna muhiim ah barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo Arbaca waxaynu ku soo qaadanaynaa nimankii dacmu sariic ayaa waxay soo bandhigeen videos ay leeyihiin daa'iraad masriya ama diyaarado dagaal oo kuwa Masar ay leedahay ayaa na duqeeyay. saldhigyadeena dukum daakum ka dhigay. waryaa naga qabta iyagoo shahaadanaya laa ilaaha illa allah ku hay oo nagta laga saaray ayaa la soo bandhigay. haddaba marka waxay leedahay Al-Jazeera maxaa ka jira fiidiyoyadaas oo nimankan ay soo bandhigeen? ciidankan yaa jugta ka geliyay, diyaaradaha garaacay yaa waaye dacmu sariic. marka waxaa leeyahay cid kale oo hadda dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin cid kaleoo garaaci karta male. Masar nimankan jugta ka gelisay. sacuudiga nimankii wuxuu jugta ka geliyay gooni ogoosadka ahaa halkaas Yaman. kuwanna waa gooni ogoosad kale oo imaaraadka uu doonayo Suudaan inuu ka gooyo dhulkan dahabka iyo waxa kan laga soo saarayo inuu iska dhuuqu rabo imaaraadka iyo Israa'iil iyo waxba isku daabanaa. asaguna jugta laga geliyay. marka sheekadii adduunka oo dhan waxay noqotay qoladii madaxa soo qaadaba in nagta laga saaro. marka hadda waxaa leeyahay arrinka diyaaraduhu haddii uu sax noqdo khalaas waaye. Masar dagaalkii waa gashay, nimankaa waa ku daayeen. diyaaradaha loo soo diray laba ah meelay ka yimaadeen ma yaqaanaan. nimankan xeryahooga iyagoo ku jira ayaa jugta laga geliyay. markaasaa
qayladooda baxaysa waan idin tusi doonaa videoga haddaba marka hore marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow warbixin ka diyaariyay wuxuu leeyahay maxaa ka jira videoyada ay soo bandhigeen in markaa Masar ay duqaysay ciidanka dacmu sariic ee dalka Suudaan marka videoyadan marka Al Jazeera waxa leedahay marka baarnay waa fahmi weyne qaar waxay ku sheegeen dadka qaar waxaan waa wax hore dawladda Suudaan maray duqeynaysay waaye qaar waxay leeyihiin waxa kan lama yaqaano diyaaradahan meesha ka yimaadeen ee meesha nimankan joogta ka galiyay laakiin qoladan dacmu sariica waxay leeyihiin videoyadan waa Masar joogta naga gelis wax hore ma ahan ilay meel kasta soo dhigeen social media iyagoo ashhaadanay aan idin tuso waa tahay marka nimankii marka imaaraadka ahaa sidaasa marka iyaga iyo kooxdoodii joogta loogu hayaa la leeyahay xaalku marka halkaasuu marayaa marka wixii wararaya ka soo kordha iyaduna sheekadan waan idin la socodsiin doonaa haddaba qadar xayeysiisha kadib waxaan u wareegaynaa dhanka magaalada Gaza oo warar cusub ay naga soo gaareen kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadaan idinkugu talagalnay haddaba waa qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo Arbaca waxaynu ku soo qaadanaynaa xaaladda magaalada Gaza maalmihii la soo dhaafay waxaynu ka hadlaynay xaaladda inay dhibaato dadkii haysato teendhooyinkii ka burbureen qabowga waxay ka galaan aanay jirin caruur yaryar haddana qabow ay usii dhinteen cabaad fara badan oo meesha ka baxay marka waxaa leeyahay Israa'iil waxay u ogolaatay hay-adda bisha cas ee Masar inay geliso gargaar dhowr baabuur oo gargaara inkastoo leeyahay dhowr baabuur oo gargaara waxba kama tarayaan meesha gargaarkii rasmiga loogu talagalay way hortaagantaa way diidanta marka si aan loo dhihin waxba meesha ma geliso loo dhihin ayay Masar fasaxaysaa waxaa leedahay bisha cas Masaarida ayaa loo ogol yahay inay dhowr baabuur geliyaan hay-addii qaramada midoobay UNRWA iyo wixii oo dhanna waxay leeyihiin raashinkii iyo wixii aan wadnay waa halaabayaan sidee xal ah marka waa la soo taagan yahay haddaba intaasuba ma uga darayaana leeyahay bal aan aragno wixii laga qoray sheekadan haddaba wararkii ugu dambeeyay arikan laga qoray waxa uu sheegayaa telefishinka Al Carabiya ayaa wuxuu leeyahay iyadoo laga jawaabayo xaaladda dhinaca cimilada oo xumaatay ayaa waxaa la sheegay in ay dhaqaaqeen kolonyo baabuur gargaar sida oo cusub kuwaasoo ka gudbay dhinaca macbarka Rafax waxaana la sheegay inay galeen dhanka iyo Gaza sida la leeyahay waa tahay marka xaalka Gaza isagoo halkaasuu maraya saxaabay wixii warara ee soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa like gareey oo share gareey barnaamijka haddaad cusub tahay subscribe ka iloobi YouTube ka Facebook ana follow gareey nabadgelyo